السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابي داوش ونحسن هل كان قدر نسنوا فاميلي داعدي دقن ما شاء الله أصحابتا وحنا هلا ودرس داعت ما شاء الله أصحابتا مالي ونحسن سعادة ونحسن وقت إديتا هذي ونحسناتو ما شاء الله آد يدا ومحسنتين سا سبسكرايب كيسيسان سا لايك كيسيسان محاربة مانتا إنا كحلو محيالو بني آدنك تباع كاركتين أما بني آدم هي كريكتين وحن معرتي أنا كمارمين لكن ولا كمارمين كنا محاربة إن أن كهالله وحيرو كوبان وحيدين كعسنا مركه هريسو إن سبسكرايب سيسان لايكنا سيسان كومنتينا يقصو قرطان ماشي هكا قلدنا هاي ماشي هكا سحنا هاي إنتو مارتين إيسو قرطان وايو بني آدنا هاي وقلدمي كرا بني آدنا هاي وقفي كرا ما شاء الله هاد waa mahadsantihiin inta isiisay subscribe-ka maanta waxaan fadhiyaa xafiiskayga oo shaqada ah maadaama shaqada ay ka yaraatay oo shaqo yar aan ku dhex jiro waxaan isdhahay maartay dadka ku daawanayo walaalahaaga bal maanta wixii adiga aan maartay kugu soo siyaaday ama wixii maartay maskaxdaada ku jiro la qaybso wax kale ma ahan waxaan rabaa Soomaali wax walba dabeecadii ka dhigatay waxaan rabaa inaan ka hadlo qurwaay daro iyo xaasidnimo waayo qofka walaalka ah hadduu heer gaaro ama horumar uu gaaro ma ahan in aad ka daba shaqeyso ma ahan in aad qodqodo waayo walaalka horumar gaaray haddaan niyad u furto adiga Ilaahay ku siinaa haddii aan haysan haddaa haysatidna wuu ku siyaadinaa xaasidnimada shayga la dhahana ma fiicna waxa waaye alxasdu laa yaflax qof xaasid ah ma liibaano xadiis dhan ayaa maartay ku soo arooray waxaan rabaa in aan dad Soomaalida ka mid ah wili arrimaha Soomaaliya aad iyo aad u taqaano oo wili qaasatan dadka asleedahay ma sha Allah waaye ayaa waxay sameeyaan walaalka qafka amaarta horumarka gaaray ama qafka dadaalkiisa muujiyay ama qafka hataa reerkiisa wanaagsan yahay in laga daba shaqeeyo waayo reerka wanaagsan oo farxadda ku dhisan wanaaga iyo horumarka gaaray dad ka xun waa la og yahay Soomaalida waxa ka xun dad badan ayaa ka xun wax yar oo kooban way ku farxayaan ما شاء الله هرمرك ولا كسجاري وايو فاميلا ديسان اما قوسا ديسان اما غير وناكسن اسكو على المواضيع على فيلا اسكو سيي او اد محبه كدحيسو او محبدودا دداي ديبه محبدودا دداي ديبه dagaalkooda iyo shidadooda iyo maartay ishor imaadkooda daday ku farxayaan walaalkaaga dhibkiisa inaan ku farxado waxa waaye diinteena mana tusayso mana sheegayso walaalkaaga waxa la rabaa farxadiisa inaan ku farxado dheeftiisa inaan ku farxado murugadiisa inaan la murugto dad badan aan arkay oo hadda dila tiriyo dadka qaarkood isdhahaayo bismillaah dadkaan maxaa waaye oo arrimahan ku dhex jiro waaye ma rabaan dad family wanaagsan ama family dhisan in farxadooda ay horumarto marabaan waxa la dhahaa nin inaag ayaa hadda isqabo ama Ilaahay isku calafay oo reerkooda degan oo reerkooda wanaagsan yahay farxadoodan wanaagsan tahay oo maarta wax aan ka maqneen habi isku kalsoon laba mid la dhahaa reerkaas saas laba mid la dhahaa haddii reerkaas farxadooda ay dhameystiran tahay kalsoonidooda dhameystiran tahay dad oo wax ka qasneen aysan ahayn laba mid la dhahaa ila fiir labada la dhahayo waxa waaye hadduu ninka naagta uu qabo oo ku kalsoonaado ama naagta uu qabo oo ma artay farxad uu siiyo ama naagta uu qabo wax aanan maartay dhib iyo shida aan ku heenin oo amarka iska kala qaadanayaan ee iska warqabayaan ee abaay intee joogtaa aboo intee joogtaa maxabadaas ay abuurteen ya laba la dhahaa
naagta haddaa adeecdo oo amarkeeda qaadato fiiriya ereygan naagtaada qabtid reerka kuu joogto kuu dhaqmayso awlaada kuu heeso waa inaad war iska maqashaan sax haddii naagta iyo adiga dad iska warqaba aana qatiin oo mid kale maartay warka maqlayso oo la ogaado waxaa lagu dhahaa naagtu ka baqa Soomaaliya la fiir eegan naagta uu ka baqa lagu dhahaa waayo naagta ugu baqaysid maxay tahay naagtaada waayo hadalkay ku dhahdo waa inaan qaadataa waxa idinka dhaxeeyo waa awlaad family dhisateen dad waxaa tiin maxabbe jacayl iyo maxabba ku soo guursatay guriga keensatay waxa lagu leeyahay naagtaada haddii amarkeeda aad qaadato waxa lagu dhahaa naagtu ka baqay kaas horta ma rabo ninkaas ama qafkaas ku dhahaayo naagtu ka baqay naagtu ka dambeeyaa haye naagta ka dambeeyaa la dhahaa horta mid aan isiyo midaas koo mid xigto hadduu naagta u yahay nin naagta u jajaban ama nin naagka maxabbu ahaayo ama nin naagtiisa aad iyo aad u qiimeysanayo oo sharfaayo ciziinayo oo karaameysanayo oo naagaha kale oo maartay la feelkeeda ah iyada maskaxda ay ka saaran tahay aad ay weyn tahay waxa la leeyahay naagtaan waxa waaye ninkaan way haysataa way sixratay wallahi billahi ta'ala sixir horta qofki amino horta qofkaas dhiban sixir qofki amino asaa dhiban labada isjecel waxa la rabaa in aad dhaxdooda ku mashquulsho ma ahan waa labadan oo isjeclaadeen hadeera waxa isku qabtaano waxa isku diidaano waxa la rabaa walaalkaaga in aad adiga xumaantiisa inaad raadisid ma ahan waayo xumaanta walaalka daaraadiisu ogow adina ilaahay waxyaalo badan aad leedahay ma qarsantid adig xumaantaada ilaahay wuu soo bixinaa ilaahay xumaantaada wuu soo bixinaa waxa waaye dad badan aragnaa doorsan is leedahay sharafan is leedahay ciziisan is leedahay iskaraameynaayo laakiin ku jirto waa is leedahay ninkan mu'min waaye laakiin mu'minnimadiisa ilaahay og laakiin waxyaalaha oo maartay ku hadlaaya daa aragto waa la yaabay horta reerka isqabo waxaan idin leeyahay ilaahay idin barakeeyo labadii lamaana isqabto waxaan leeyahay aan horta ku farxaa lamaaniyaashiina waxaan leeyahay guuleysta maxabadiina ziyaadiya haddaa aragtaan qof idinka xun wada socodkiina wada sheekeysiina marxabadiina iyo maartay qosolkiina qofka xun haddaa aragto qofkaas lugooyo u socdaa inuu lugooyo u rabaa ziyaadi maxabadaada wixii raba lagu dhaho adig dhig jalaqa u siin naagtaada jeclow وجعل نكتير محبة قبا ما شاء الله حبيبي حياتي بيبي يا قلبي وناك ناكت هذا ما شاء الله وحكو مارتي ديوات المرأة لكن دادا وحي بكشق يستانبو نينكا يناكتان هديبو قالا نقدان سيلو فلانقين لها اللي سيلو كلا دير لها أم سي ورك لو كلا قادي لها ناكتو حلالية هاي أدي ناكتا إنين كده كدبينيسو ميلس كسار نينكان على نها حل رادنا وحيتا إنو سكو دعو ciidaasna wax kala maahan kala taga imaanayso haddii naagta oo maartay ninkeedana uu ka dambeeyo oo ninka naagtiisa wixii dhahdo qaato wixii maartay ay wada tashtaan ay wada qoslaanne dada ka xun Soomaali waxaan leeyahay horta arimahaas dadkii oo maartay jecelo dad isjecel inay kala geysaan dad jecel inay maartay ka dhax shaqeysaan dad jecel inay isku dirtaan horta Ilaahay ka baqa dad waxaa tihiin adduunyo aakhiro waa kala badanta lamaanayaasha isjeclaadayo ilaahay idin siyaadiyo cadowgana Allah idinka qabto waxaa idin leeyahay aniga dadka qaarkooda iska dhaafaan dadka isjecel lamaana isjecel isdoortay isku kalsoon guryaha wada joogaan maxabadooda maxaa aga daba shaqeynay maxaa kaaga khuseeyo oo maanta dhan howl aaga dhigatay taada ku baahani adiga taada la meel saaro dadkaan is calafsaday is doontay maxaa ka daba qodqodaan oo maxaa u daba socotaa waxaan idin leeyahay walaalayaal horta arimaha Soomaaliya u badan tahay Soomaaliya horta waxaan idin leeyahay walaalkaaga waxa aad jeceshahay la jeclo xadiiskii ahaa mafahant waxaan necab tahay la nacab farxadiisa la farxan sanaw muslimada taas waa laakiin ma aha muslimada soo ku helay iyo maxaa ka dhaxeeya iyo shay waqaal u noqdeen iyo anka maartay si maartay adduunkan u helay iyo soo maartay naagtan wanaagsan oo sharafta badan u helay iyo xaasnimada ma fiicna yaqaan xaasnimada ma fiicna wax wanaagsan ma aan
xaasidnimo wax fiican ma ahan ee walaalayaal waxa idin leeyahay ka digtoonaada dadka isjecel waxaan leeyahay ilaahay idin siyaadiyo maxabada isjecel